Bitcoin waxay jabisay ugu dambeystii all time high fursadaha cryptocurrency aad ayuu u weynaaday maadaama uu ku guuleystay doorashada Mareykanka Donald Trump Solana sidoo kale iyadoo dab yar mashadayso suuqana way qabsatay haddaba ku soo dhawaada videogan maanta waxaan isku eegi doonaa fursadaha ka banaan suuqa cryptocurrency fikrad walba oo qof kula wadaago ugu waxa jirta active buyers oo aad maskaxda ku jiro raadinaya waxa niyadeeda ku jira maskaxda ku jira wax ونقطة عدين كاسو أدينا كور شديد كلام إني سنقول حكوابون مركا حكومة في الرادي أنا كم مالكشان فكرة كل وذاك دون كورن أنتين وجد جين فرصة ها كبنان السوق يصدق كلا فرصة يعني دي كل وذاك كويدي نوفمبر أو هذا كدوات شن لاتن برسنتج إلى لاتن برسنتج أو فايدة سمسي وحرب إني نسلا فكرنا أنا يا صاحبك واحد كفكرنا شلي هدي ودون شان دور شركة جولستي محاك لو إنه فلان كرنا محوية worst scenario إنه صورن كرنا متشرت التاريخ الأقالها ama economiga madaxweyne Mareykan oo soo maray oo diyaar u noqday inuu ka dhigo shacabkiisa taajir taas abid horumayd Donald Trump maadaama uu ku fiican yahay finance-ga business-ka macnaheedu ma ahan in uu ka dhigi doono dadkoo dhan iyo suuqa cryptocurrency taajiriin waxaan ka fikirnaa ahayd maxaynu sawran karnaa oo halis ku noqon kara suuqa cryptocurrency waxaan soo baxday tan ka waran hadii dawladda Mareykanku ay soo saarto coin ama token ay dawladdu oranayso hadii shacabku ay ku bixiyaan cashuurta token kan ama coin kan waxaan u sameyn doonaa qiimo dhimis macna cashuurta bixinaysa haday ahayd 10% waxaad bixin doontaa 8% ka waran hadii shacabku la soo bandhigo ka bacdina waxaan soo baxday inay tahay fursad shacabku u noqon karta waxa ay ku farxi doonaan oran doonaan waa maxaa diiday aniga dhis account dadka badankooduna aqoon fiican u malahan finance-ga mana oga bitcoin faa'iidada ay leedahay iyo waxyaalaha ay ku fadhiday qiimaha ku fadhido markay fursadan loo soo bandhigay shacabku waxaan hubaa in ay dooran doonaan tokenka ama coinkaas haddaba maxaa ku dhici kara bitcoin waxaan soo baxday waxay ahayd maalinta ay ku dhacdo in ay tokenkaas soo saaraan ama coinka ay soo saaraan waxa dhici doonta in bitcoin xiisii loo qabay in hoos dhaco ugu bitcoin sababta inuu maalgashano wax kala ma waxa weyn maadaama Joe Biden waqtiguu joogay in uu daabacay lacag aad u far badan oo suuqa looga baahnay taasna ay sababtay sicir bar marka dadku waxay raadinayaan wax kale oo maalgashan karayaan oo ka fiican dollarka maadaama uu qiimihiisu hoos dhacay maalinta la soo saaro token wax tar leh supply-gi dhammaan bitcoin ku carreeyay waxa dhacaysa inay ku cararaan token kan ama coin kan waayo dadku waxay raadinayaan meel ay hubaan oo secure oo dawladdu gacanta ku hayso oo laakiin hadana faa'iido sameyn kara oo ka fiican dollarka maalinta taas dhacdo maxaa dhici kara ta kale in ka fikir waxay ahayd Donald Trump maadaama uu ku guuleystay waxa hubaala in dollarku awood yeelan karo maxaa ku dhici karaya currency-yada kale inuu isticmaalanay dalka joogto u fiirso maxaa ku dhici kara lacagta isticmaasho dhaqaalahan saameyn noocyo kugu yeelan karaysa ka bacdina ka raadi fursadaad ku maalgashan karayso fursadaha ay abuurayso awood ay yeelanayso dollarku marka taas ma ka fikri bar waxyaalaha aad u isleedahay dhaqaalahan iyo saameynta ku yeelan karayso dollarka iyo soo kale Donald Trump bal commentiga igu wadaag 1 November waxa jirtay fursad la wadaagay oo ahayd Ethereum sababta idin wadaagay technical ahaan balan eegno sida adiga laftarkaagu aad u fikirtooda adiga laftarkaagu aad ugu darsatay xisaabta hadii fursada noocan ku soo maraan hadda fiirsid Ethereum waxaan arkaynay in aynu ku jirnay meel yar oo mataqaana ay oran karno consolidation bitcoin mar hadii dhaqaaqad in Ethereum na dhaqaaqi karayso waxa dhacday in consolidation kan ay sameysay maxaan idhaahdaa in ay jabisay halkan high ugu sameysay markii ay jabisay ba waxaan arkay in markii ay soo laabatay fursad waqtigeedii wadaagin waxay 1 November in mataqaan ay taagneed meel aad u cajiib hadaan fiirno 1 November waxa ay taagneed halkan waxaan arkaynay markii ay jabisay high-ka in ay soo laabatay oo halkan sameysay medication ka bacdi medication markii sameysay in sare u kacday 1 November na wilka hada ay taagneed meeshii aan mataqaan adeegyada kula wadaagay isla markii halka ay timideen waxa dhacday in ay hoos soo dhacdo ilaa iyo 5% ka bacdina degdeg ay uga dhaqaaqdo oo mataqaana ay sameyso ay ilaa iyo 3,000 oo dollar ay tagto halkaas ani ahaantay portfolio markaan fiiriyo waxa faa'iido fooshay ku dhawaad xooga 20% wax noocaas oo kala hadii aad aduguna Ethereum qaadatay oo aduguna maal gashatay bal commentiga wal wadaag iyo faa'iido ahaan intaad ka sameysay intaas ka bacdi dad far badan bay isweydiinayaan bitcoin miyay waqtigu ku haboonid inaad maal gashato ma soo laaban karaysaa fursad ma keeli karaya hadaba hadaynu eegno waxaan filan karnaa technical hadaynu eegno waxaan arkaynaa suuq wilkaada inuu mataqaana sare u kacsan yahay aynu arkana sidoo kale laakiin in ay ka tagtay maxaa la yiraahdaa imbalance ama mataqaana meel kaliya buyers ay ku jiraan suurtagalna ay tahay in halka ku soo laabato waa suurtagal marka halka ku soo laabato ka bacdina ay halka marka ku soo laabato in ay ka bacdina ay sare sii aado waa suurtagal
waxa suurtagal sidoo kale in ay sare uga sii socoto markaynu eegno Google Trending haddii aynu eegno waxaan arkaynaa mar walba taariikhda aynu eegno in dad fara badan ay raadiyaan Bitcoin waxa dhacaysa in mataqaanaa hoos u dhacdo haddaad fiirisid November 2017 bal fiir maxaa dhacay laakiin waqti xaadirkan ma taagna meel sare marka waxaan filan karnaa in Bitcoin ay sare sii socon karso waa markaynu eegno Google Trending iyo sidoo kale technicalka laakiin sidoo kale waxa suurtagal ah in ay halka ku soo laabato ka bacdina ay sare u kacdo waa fursad dhici karta oo samayn karso Solana sababta ay trend waqti xaadirkan u tahay waan kula wadaagi doonaa balse intaan inta guda gelin waxaan isla eegi doonaa isla analyze gareyn doonaa laba coin oo soo codsadeen dad kamid ah dadka ku xidhan family Hantielo High Street Token ayaan marka koobaad isla eegi doonaa waqti xaadirkan waxay taagan tahay $1.70 market cap keedu waxa weeyaan $90 milyan and volume ki ugu dambeeyay 40 saacadood ee dhaxmaray wuxuu ahaa 12 milyan maximum supply malahan waa red flag ugu horeeyo haddaynu fiirno community-geeda waxaad moodaa in markaan fiirshay inay yihiin traders aysan ahayn investors oo token-kan u maalgashanaya si mustaqbalka ah hadda technicalka aynu fiirino high street token waxaan u jeednaa in yar yahay suuq yar waaliya aysan ku jirin dad investor ay ku jiraan laakiin badanaa dad traders waxaanu arkaynaa in markii ay gaadhay all time high ay degdeg uga soo noqotay halka waxaan ku arkaynaa dadkii maalgashada halkan inay lacagtooda ka saarteen suuqan ay isaga baxeen markii halka la gaadhay hoos buu soo daatay haddana sare u baxday isla waqtigii haddana ku xigtay hoos buu soo daatay waxaa halka arkaysaa in ay ku jiraan traders aysan ku jirin investors aaminsan token-kan inuu mustaqbalka uu noqon doono mid qiimo ku fadhiya bulshadan u xalinay dhibaato sidoo kale markii saddexaad waxay gaadhay mar kale meel sare $9 ay gaadhay haddana isla isbuucii gudaheed bay hoos soo daatay marka halka waxaad ka fahmaysaa charts-ka iyo technicalka in traders ay ku jiraan aysan ku jirin investors token-kan aaminsan talabaadna isla eegi doono waxa weyn waa Taylor haddii aynu fiirno Taylor halka ay taagan tahay Taylor waqti xaadirkan waxay taagan tahay $250 market cap-keedu waxa weeyaan 137 milyan volume-ka ugu dambeeyay dhaxmaraana oo volume dhexdhexaada 113 milyan ayaa ugu dambeysay midqaana oo dhaxmaray 40 saacadood ugu dambeysay all time high-ga markii ugu dambeysay ay gaartay bal haddaynu fiirno waxa ay gaadhay maxaa la dhahdaa 31 December 2023 waa 10 bilood ka hor waqti xaadirkan waxa ay hoos dhacsantay 90% haddaynu fiirno technical ahaan bal waxyaalaha aynu filan karno Taylor haddaynu fiirno waxa jirtay hal mar oo ay sameysayba hal mar bay mataqaana saro dhaqaaqada waxa jira moodaa inay shabahayaan Taylor iyo High Street Token labadoodaba isku si waxa jira moodaa inay ku jiraan traders aysan ku jirin investors sida technical dad fiirsa haddii coin ama token aad maalgashanaysid ama meme coin waa in ay jirtaa wax joogta oo korin joogta price-ku si fiican u koriyo haddii waxa taa retracement u sameeyo in uu 90% uu retracement u sameeyo 80% waayo 90% kan markay hoos soo dhacdo waxa aad filanaysaa in dadka ku jiray aaminad ku qabay coin-kan ama token-kan ay ka aamin baxayaan waxaan waba dhintay hoos buu soo daatay marka ma ogi Taylor inay iyadu way dhaantay horta high street markaan fiiriyo dhici karta inay mustaqbalka ay yeelato mid fiican laakiin Allahu ya'lam waqti xaadirkan laakiin ilama muuqato mid fiican inta ka bacdi dad fara badan baa raadinay waxa ay maal gashadaan waqtigii ugu dambeysay waxaan aad u raadinayay oo isweydiinayay waxay ahayd halkan su'aal halkee bay ku qulqulaysaa lacagta u badan ee cryptocurrency dhex maraysa haddii aynu eegno halkanna waxaynu arkanaa in blockchain-nada waqti xaadirkan in meesha u badan ee lacagta u badan ay dhex marayso 40 saacadood ugu dambeysay inay tahay Solana blockchain taasna Solana ay ka dhigayso mid sare u kacaysa meme coins-ka dhammaan mataqaana lagu dhex trade gareyn karayo Solana in iyaduna ay ka dhigayso meme coins walba oo sare aada in sidoo kale ay u sahlayso in Solana ay sare aado marka isweydii marka wax maal gashan waqti xaadirkan lacagtu halkee ku qulqulaysaa ma waxa ku qulqulaysaa AWA ku qulqulaysaa ma AI ku qulqulaysaa ma gaming ku qulqulaysaa ma memes ku qulqulaysaa inaad isweydiiso ma coins waaweyn ku qulqulaysaa inaad isweydiiso su'aalaha noocan waxa ku sahlaysaa wixii ku haboon inaad maalgashid blockchain aan u arkay inuu yahay blockchain aad u fiican koreyn fiican sameynaya baraba inaan hadda kula wadaago oo arag cid ka sheekeynaysa blockchain-kan waxa weyn waa Nia protocol haddaynu tagno website-keeda waxaan arkaynaa in ay runtii ay sameysay partner aad u fiican waqti ka dambaysan ay sameynaysa partner cusub ay korisana waxaan arkaynaa in ay macna partner la leedahay Alibaba, Arbitrum, Customize, Google, Polygon, Suites shirkado waaweyn ah haddana sidoo kale waxaanu arkaynaa adressidii ugu dambeeyay ee mataqaana
active address aha NIA waxaan arkanaa inay yihiin markas dambeeysa kuwa Korea oo mataqaana uu graafku uu yahay address cusub inay ku soo kordhiyaan maxallada NIA haddaynu fiirino waqti xaadirkan halkay taagantiin waxa weyn waa $4.40 market cap-keedu waxa weyn 5 bilyan volume-ka ugu dambeeyay mataqaana 40 saacadood ee mataqaana dhaxmarin waxa weyn 365 milyan haddaynu fiirino all time high goortii ay gaadhay waxay ahayd 2022 sano ka hor January 16keedii all time high waxa ay hoos uga soo dhacday waxa weyn 78% haddaynu fiirino technical ahaan haddaynu fiirino NIA halka ay taagantahay waxaanu arkanaa in mataqaana meeshii ugu hoosisay ee ahayd low ugu hoosiyay markay sare soo dhaqaaqday inay sameeynaysay maxaa la yiraahdaa sarawka taasoo mataqaana sababtay in mataqaana halkan la jabiyo NIA technical ahaan meel aad u fiican ay taagan tahay waxaan aad u jeclaystay oo si qalbiga aan rabaa in la wadaago waxa weyn in aynu marafar badan raadino waxa ay maal gashan lahayn laakiin aynan isweydiin maxaa xaraan iyo maxaa xalaal فضلاً waxaan kaaga digaya coin ka aad maal gashanaysid inaad iska eetid ka hor intaadan maal gashan waxa jiray coin aan rabay xataa in dilo wadaago oo maanta shaashada inoo saarna daawaha inoo saarna oo dilo wadaag laha oo aha Aave ana hanti waan maal gashaday waqti xaadirkan waxaan ka sameeyay malaha 5% wax noocaas oo kala faa'iido haddana waxaan ogaaday in xaraan tahay marka fadlan waxaan adigana kaaga digaya inaad iska eetid coin ka aad rabtid inaad maal gashid maxaaran ba maxalalba waxaad ka eegi kartaa meeshan website kan waxaad ku qori kartaa salahan Aave oo kale وها كان مال قشري إن وسمحين مد أن لاقبلن دينيا شرعيا أبديت أي سميان سجوكتا بسجالك بيجي كويتون ذا أبديت سميان مركا كوين كأدر بتد جلي صالحان باب وقله وأهاكي حتى ندلو ذاقي وأي كتاجنت علامة سؤال مركا فضلا سكفير كوين كأدر بتد مال قشري وذكر اللي جلي حتى دان كوين أنا ندلو ذاقي أنا الإيجن حلاشي سي حلان تيزا مركا أديكن أدين كوبورني نسكيتي أنت إذا كله لكن مالقشي كله بورتفوليو كله وان أمستري مركا بورتفوليو أيها جرا دد فربنا يلو ذاقين دد كقارن تخانو كوينو كخيمي هدي أي صورة كلنا قطع مستقبلك إن بورتفوليو يدلو ذاق ودي كرتا مركب بالهوست واحد يقولوا ذاك تا كوين كأس لا هي واحد نبهنا إننا الله زكرينه أما مستقبل في عن أيوليه وهذا بورتفوليو كم هدي أي جرا دد حزين بورتفوليو عن قيمنا بالهوست يقولوا ذاك تاسنا haddii aadan aqoon waxa ay cryptocurrency tahay aqoon dheeraad ah u baahan tahay inaad fahamtid cryptocurrency waxa uu yahay sida uu shaqeeyo si aad u fahamtid uga qayb qaadatid maalgashiga socda iyo hadalhaynta faraha badan leh ee suuqa ku dhex jirta waxa jirta koorso free aan kugu diyaariyo oo YouTube ugu jirta halkan ayuu ku soo dhigi doona daawasho wacan